gobolka Sanaag waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka taagneyd xaalad adag oo u dhaxaysa ciidamada Korneyl Caare iyo xukuumadda Somaliland taas oo ka dhalatay kadib markii ciidamada Korneyl Caare ay ka soo guureen magaalada Qardho oo ay deganayeen soona degeen buuraleyda gobolka Sanaag. magaalada Cergaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxaa ku sii qulqulaya ciidamo kala duwan waxaana halkaasi ku sugan taliyaha ciidamada qaranka iyo saraakiil kale. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi gaadhay madax dhaqameed waxgarad iyo cuqaal kuwaasi oo ka tegay gobolada Maroodijeex iyo Togdheer. wararka ka imanaya magaalada Cergaabo ayaa sheegaya in ay jiraan wadahadallo aan si rasmi ah loo ogeyn oo laga dhex wado xukuumadda Somaliland iyo jabhadda Korneyl Caare. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa walaac ka muujiyay xaaladda ka taagan gobolka Sanaag waxaanu baaq u jeediyay madaxweynaha Somaliland. arrinta ka socota ceelaf weyn bahasha maxay la Cergaabo ilaahay naga soo hortiray waxaan leenahay arrinta inaga soo afjar waa gantaal barida inaga taala arrinta ka socota Cergaabo qaran ku ogeyn wanaagna meesha way ku yaaceen oo meeshii tagay oo galbeedka waxay ka tageen Somaliland waxaa maato madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda ka taagan gobolka Sanaag tan iyo intii ay xaaladda gobolkaasi cakarantay. waxaana madaxweyne Muuse Biixi Cabdi rajo ka muujiyay in xaaladda gobolka Sanaag ay ku dhammaan doonto nabad. arrinta Cergaabo nabad baa ka jirta warwar kama qabna inay dhammaanayso nabad ku dhammaanayso. dadka halka isugu tagay kuwa sii joogay kuwa u tagay kuwa dibad jooga dhammaanteen waxaynu heshiis ku nahay inay arrintaasi nabad ku dhammaato oo islaax dhexdeena ku dhammaato oo waxba inaga duulduulin. wixii sharciga sidii loo waafajinayaa la isweydiinayaa mooyaane maanta halka khilaaf ka taagan oo la isku diidan yahay dawlad iyo odayaal iyo dhalinyarada inay cadhootay midna ma jirto. qodob bayriyo sharciga la xalinayaa si sharciga loo waafin lahaa taana ka warwar la'aada nabad bay soo dhamaanaysaa dalkuna waa nabad. ilaa hadda ma jirto war cad oo ka soo baxay dhinaca xukuumadda Somaliland oo sheegaya in ay wada hadallo la wadaan jabhadda Korneyl Caare. sidoo kale ma jirto war rasmi ah ka soo baxay dhinaca Korneyl Caare oo sheegaya in ay wada hadal la wadaan ama la galayaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. bulshada gobolka Sanaag ayaa si weyn isha ugu haysa xaaladda ka taagan gobolka Sanaag lamana oga waxa ay ku soo dhammaan doonto maadaama buuraleyda bariga gobolka Sanaag ay isku hor fadhiyaan jabhadda uu hogaaminayo Korneyl